gabadhii dhuusadeedu ay badbaadisay magaalo iska dhan. Tuulo ku taala galbeedka Afrika gaar ahaana dalka Senegal ayaa hadda ka hor waxaa ka dhacday qiso weli laga sheekeeyo oo la yaab leh. Waxaa jirtay gabar la yiraahdo Zuri oo ka mid ah dadka deegaanka. Zuri waxa ay ku dhalatay maqaadiir cajiib ah ama xanuunka la yiraahdo gastroparesis, taas oo ah inaanay kala joojin karayn dhuusada. Haba dhuustee waa dhuuso ur qarmuun oo aagga waxa jooga oo dhan ay kala cararayaan. Dhakhtar dhaqameed kasta waa loo tegay, cuntada ay cunayso waa laga bedelay, qur'aan waa lagu akhriyey maadaama degmadu ay muslim ahayd. wax kasta waa lagu sameeyey, laakiin gabadhii mar keli ah arrinteedii xal waa loo waayey, waana lagu guulaysan kari waayey. Carruurtii ayaa bilowday in ay ka daba yaacaan si ay uga maadaystaan. Dadka waaweyn qaarkood ayaa inta halka ay joogto ay isa soo dhoobaan oo sidii giraan oo kale dhexda ay u gashadaan caayi jiray iyaga oo ku oranaya ereyo xunxun oo lagu bahdilaya inanta aan quruxda lagu gaarayn, waxba ka khaldanayn ee fariida ah, laakiin dhinacaa dambe un neeftu ay ka socoto. Zuri waa ay dhibsatay bahdilka iyo cayda degmada kaga socota, mana taqaana meel kale oo ay aado. Ugu dambayn waxa ay go'aansatay in ay guri cariish ah ay ka dhisato meel degmada geeskeeda ah si ay uga nabad gasho dadka dhibay ee ku daba jooga wax rabbaani ah oo aan ahayn cillad iyada ka timid. Tuulada waxaa inta badan soo weerari jiray libaaxiyo looga taag waayey xoolaha nool sida lo'da iyo ariga, kaas oo wax badan ka laayay. Libaaxu marmar dadka ayuu weeraraa oo dhowr qof ayuu sidaa ku cunay. Habeenkii dambe ayaa waxaa libaaxyadii ay ka soo galeen dhankii geeska ahaa ee ay Zuri deganayd. Libaaxyadii ayaa weerar ku soo qaaday gabadhii si ay u cunaan. Iska caabin ayay samaysay oo Zuri waxaa quruxda u dheeraa inay geesiyad ahayd. Galgaladkii iyo rafaadkii ee is haysteen libaaxyada iyo gabadhu ayaa hal mar sidii caadada u ahayd qoftii Zuri ahayd dhuuso ku waalatay. Libaaxyadii ayaa markii ay ku soo boodeen dib uga cararay kadib markii uu waxyeelay urta dhuusada iyo weliba shanqarta ka baxaysa. Dib ayay kayntii ay ugu laabteen libaaxyadii oo halkaasi guuldarro kaga dhacday. Zuri ayaa ku sii daysay dhuuso sidii qiiq oo kale ah ilaa ay libaaxyadii ay ku hafteen oo ay naftooda ay la baxsadeen. Habeenka oo keli ah ma aha ee tuuladii libaax dambe dib looguma arag oo waa ka haajireen degaankii oo dhan. Zuri ayaa qoyskeeda u sheegtay wixii dhacay xalay iyada oo tusisay nabarro ay libaaxyadu ay gaarsiiyeen. Qoyskiina dadkii kale ayay uga sheekeeyeen ilaa tuulada oo dhan laga ogaaday in Zuri ay tahay qofta tuulada ka xoraysay libaaxyada laayaanka ah. Dadkii ayaa ku farxay oo u mahadceliyey Zuri, kana yareeyey faquuqay cidlada dhigay ee goonnida dejiyey. Tuuladii ayaa waxaa ka soo baxay wiil la yidhaahdo Cumar ama Omari, sida ay iyagu ay ugu dhawaaqaan, kaasi oo diyaar u ah inuu guursado Zuri. Gabadhu hadal kama gelin guurka oo hawraarsan ayay tidhi, laakiin shuruud ayay waxa ay uga dhigtay in uu degmada uu ka raro oo uu meel kala geeyo si ay xal ay ugu helaan cilladeeda iyaga oo la kaashanaya dhakhaatiirta sida dabiiciga ah wax u daaweeya. Waxa ay degeen meel jasiirad ah oo uu ku nool yahay nin Jamaican ah oo ku takhasusay dhirta iyo sida la isugu daaweeyo. Nasiib wanaag Zuri daawo uu siiyey ayay dhuusadii kaga joogsatay oo waxa ay noqotay qof caadi ah. Dhakhtarkii ayaa fariidnimada Zuri iyo maskax furnaanteeda intuu la dhacay ayaa waxa uu hamiyey in cilmigan Ilaahay baray in uu baahiyo, isaga oo gabadha baray sida daawo dhaqameedyada dhirta ka samaysan dadka loogu daaweeyo. Degmadii ayay ku noqdeen Zuri iyo Omari oo isla xaragoonaya iyada oo aan gabadha waxba ka khaldanayn. Ku darsoo gabadhu markan waa dhakhtarad. Tuuladii ayaa ixtiraam dheeraad ah siisay Zuri, waa halkii lagu bahdili jiray ilaa ay degaankii oo dhan ay ka noqotay qofta keli ah ee xikmadaha laga qaato isla markaana la weydiiyo isku daaweynta dhirta. Ugu dambayn Zuri iyo Omari waxa ay noqdeen labada qof ee ugu hantida badan ee laga hibaysto. Si kasta iyo wax kasta oo ay gabadhu ay soo martay, dadka ee Zuri xanuunada ay ka daaweysay waxaa ka mid ahaa kuwii caayi jiray ee ay dartood magaalada uga qaxday. Ugu dambayn qofnaha ku jeesjeesin, waayo ma ogid waxa ay berrito ay la iman doonto iyo waxa mustaqbalka dhici doona midna, maxaa yeelay cirib dambeedku ma aha wax adiga gacanta kuugu jira. Waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. Fadlan
haddii aad ku cusub tahay beejka bulqaas media hanaga ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale hanaga ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga faa'iidaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad ayaad u mahadsan tihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu